sidee wax isku bari kartaa macallin la'aan assalaamu calaykum asxaabta ma dareentay inaad rabto inaad wax barato laakiin aadan helin macallin kugu filan ma sarrabtaa inaad hormariso naftaada oo aad noqoto qof aqoon badan leh fiidiyogan waxaan kaga hadli doonaa sidee wax isku bari kartaa self learning waxa la yiraahdo muhiimadda ay leedahay self learning ku leeyahay ama wax isbariddu muhiimadda ay leedahay inaad adigu wax isbarto iyo talaabooyinka kuu fududeynaya inaad guul ka gaarto waxa aad baranayso runtii dhalinyartu waxay aad iyo aad ugu baahan yihiin waxay tahay in ay wax bartaan iyagoo shaqadooda ku jira gurigoodii jooga oo aan markaa galaas xaadirin waxbarashadii waxay noqotay waxbarashadii traditionalka ah iskuulada la xaadiri jiray ee qofka ahayd inuu galaas tago aad baa dunida looga guuray hadda waxay noqotay wax walba digital qofku inuu taleefankiisa qaato khadkiisa uu ka faa'iideysto koorsooyin uu iibsado oo wax barto oo isagu naftiisa uu wax baro meesha hadii aad fasal inta tagto lagu oran lahaa tusaale computer baad rabtaa inaad barato computerka lagu oran lahaa 6 bilood baa computerka lagu barayaa 6 bilood maalin walba in yar lagu sheego oo aad 6 bilood waqtiga uu kaaga lumo haddaad adigu rabto inaad barato waxa laga yaabaa 2 isbuuc inaad ku soo gabagabayso gabigiisaba sababtu waa maxay maalintii hadii koorsadaasi 30 muuqaal tahay maalintii ka waran haddaad 6 muuqaal daawato oo reed shamir ku soo gabagabayn kartaa koorsada practical oo aad gacanta ku sameynayso oo adigu aad juhdigaaga iyo waqtigaaga aad gelinayso laakiin aan lagu maamulayn sida wax lagu siinayo aan lagu maamulayn runtii wax badan oo guul ayaad gaari kartaa waana muhiim maanta qof walba inuu self learning sameeyo naftiisa inuu isagu wax baro sababta maanta dadka qof kastoo aragto inuu horumar gaaray waa qof naftiisa wax baray iski wax isku baray kadibna aqoontiisa ka mid dhaliyay waxaan arki doonaa dhowr qodob ayaan u kala qaybinaynaa sida aad wax isku bari karto adigoo aan macallin u baahnayn ama macallin baan haysan sida wax isku bari karto qodobka horta waxaan arki doonaa waa maxay self learning dabcan waxa maanay qof kasta uu maqlay self learning waxa weeye in wax isbarid baa lahaa wax isbariddu maxay tahay self learning waa inaad wax barato adigoo isku tashanaya adigoo mar walba aan ku xirnayn macallin ba wax la yiraahdo self learning waxa weeye waa isku tashi qofku naftiisa uu tashanayo isagoo aan macallin waxba ka sugayn isagoo wixiisa baranaya sababta waxaad ogtahay waxaad helaysaa ilaa 10 website oo adduunka oo koorsooyin free ah bixiya waxaad helaysaa YouTube-ka koorsooyin Soomaali ah kuwa Ingiriisi ah luqad kasta ayaad ku helaysaa koorso kasta aad u baahan tahay marka self learning waxa weeye inaad wax isbarato adigoo aan macallin haysan inaad ilaaha iyo sourceska laga helo waxbarashada laga helo inaad tagto aad wax ka barato qofka self learning ka ah ee wax isbara astaamaha gaarka uu leeyahay waxa kamid ah wuxuu leeyahay rabitaan waxbarasho qofku markuu isagu wax isbarayo rabitaan baa ku jira ma jirto cid riixaysa isaga is riixaya rabitaanku waa waxa guusha keena way motivationka qofku naftiisa uu dhiirigelinayo waa waxa guusha keena wuxuu raadiyaa wuxuu wax raadiyaa xal marka uu wax fahmi waayo asaanta labaad uu leeyahay qofku markuu wax baranayo hadee wax ku adkaadaan maadaama uu san macallin haysan wixii ku adkaaday jawaabteeda isaga raadsanaya raadintaas waxay keenaysaa cilmi badan iyo aqoon badan oo ka maqnaa inuu markaa kasbado ama uu helo laakiin hadii macallin aad ku xiran tahay macallin baa su'aasha weydiinaysa jawaab yar oo kooban buu siinaya waxa laga yaabaa jawaabtaas inay si fiican ku anficin ama aad si fiican u fahmin laakiin marka aad wax isbarayso cilad kasta oo ku qabsata waxaad ka mid dhalinaysaa sida cilada uga gudbi lahayd qofka astaamaha lagu garto qofka self learning waxa kamid ah wuxuu noqdaa qof hal abuur leh qofku markuu yahay qof isagu naftiisa wax baranaya hal abuur buu yeeshaa hal abuurku waxay ku xiran tahay markasta qofka xirfadaha uu leeyahay markaad xirfado kala duwan aad barato macnaheedu waxa weeye hal abuur kala duwan ayaad yeelanaysaa saddexda astaamood waa waxyaabaha lagu garto qofka self learning ka ah waxa kale arki doonaa qodobka labaad waxaan ku arkaynaa muhiimadda self learning ku inoo leedahay inaan wax isbarnaa وأدو نفط هذا أظن معلن أباهنا أدو وحسبرتها ومحي مهمة عي ليضح كو وحي كادك تا قف مدح بنان وحسبريد وحي كادك إيسا قف مدح بنان وقدبك كوة وحوية قدب كان عنك هلا إنه بونتي سكود وحي كادك إيسا قف مدح بنان وما بأهنينا قف والبس سكتو عديك أيا وحبران كرا ومهمة أي نوشين أولى هذا حسبريد شوك تدا وحي كل لسا فهم كاجا مركا أدو أدري السو wixii asi qotadar u baarto fahamkaaga ayaa kordhaya laakiin markuu macallin ku dhigayo inta yar uu ku sheegay ayaad qaadanaysaa intaana waxa laga yaabaa inaad si fiican u fahmin marka qodobkaasna waa muhiimadda ay leedahay self learning qodobka saddexaad waxa weeye waxay dhistaa kalsooni qofku markuu isagu iskii wax isku barayo wuxuu aaminsan yahay inaysan waxba ku adkaan karin kalsoonidu waa waxa dhisaysa qofka inuu markaa waxa uu baranayo inuu ka miro dhaliyo
qodobka afraad waxay ku caawinaysaa mustaqbalka xirfadda maanta aad barataa waa taad mustaqbalka biri aad ku biriisaynayso shaqooyin badan maanta waxay u baahan yihiin qof iskiis wax u barta sababtu waa maxay shaqooyinka ugu badan ee maanta suuqa yaala ma jiro meel jaamacad lagu bartaana ma jiro iskuul lagu bartaana ma jiro kulligood waa maxay waa xirfado skills oo qofka laga rabo inuu isagu barto weey waxa kamid ah graphic design xaga lagu bartaa graphic design video editing ka kamid ah jaacada video editing la isku baraa waxa kamid wax la programming ka kamid ah web development ka kamid ah cryptocurrency ba kamid ah haye online business ba kamid ah xaga waxa soo la isku baraa all skills ka soo dhan waa waxa qofka uu naftiisa bari karo uu heli karo iyadoo Soomaali ku qoran iyadoo Ingiriis ku qoran kadibna waxa weeye uu ku shaqeysan karo lacag waxa arkaysa ardayba 4 sano jaacad soo baranay theory baa la soo baray 4 sano baa lacag iyo xoolo iyo waqtiba ka soo lumay maalintu jaacada ka baxo hal xirfad iska daaya website ma samayn karo IT buu soo bartay wallahi buu soo website dhisi karin haye muxuu markaa faa'iido ardayga waa khasaaro laakiin waxa laga yaabaa koorso qofkan uu bil bartay والله waxa laga yaabaa inuu lacag $10,000 ay u keento waa koorso laga yaabaa inuu $10 kala baxay inay $10,000 u dakhliya oo ku helo hadda waxaan garanayaa yar bartay waxa la yiraahdo koorso bartay koorsadii uu duubay dad badan buu sii baray koorsada wuxuu iga sheekeeyay lacagta uu ka helay $5,000 inay tahay wuxuuna ku bartay $6 $6 buu isagu ku bartay $5,000 budgetka uu koorsada ka helay intuu iibinayna waa tahay soo ii sheegay weey marka halka waxa ka dareemaysaa jaacada afar xagee hadaad meel shaqo ka heshana $300 weeye oo loo ku go'o waqtigaaga diibsanayso weey qodobka inta waxaan sila fahnay muhiimadda uu leeyahay self learning waa maxay muhiimadiisu mar aan ku celino waxay ka dhigtaa qof madax banaan waxay kordhisaa fahamkaaga waxay dhistaa kalsoonida waxay ka caawisaa mustaqbal wanaagsan aad yeelato waxay ku furtaa fursado badan inaad barato sida programmingka businesska luqadaha intaas marka waa muhiimadda ay leedahay qodobka saddexaad waxaan arki doonaa sidee wax isku bari kartaa adigu sidee wax isku bari kartaa samee marka aad rabto inaad wax isbarto waxa koow ah samee yool cad samayso maxaa rabtaa inaad barato hadaf waxa la yiraahdaa waxa hadaadan hadaf lahayn jihada ka qaldamaysa marka koowaad yool cad samayso maxaa doonaysaa inaad barato tusaale waxaan doonayaa ka soo qaad waxaan doonayaa waxa la yiraahdo online business ka inaad barto online business ka aad baranayso hadafkaagu muxuu yahay waa inaad ganacsi bilowdo online business ka sida loogu shaqeysan aad barato hadaf cad waa inaad leedahay waxa aad baranayso waxaan doonayaa inaan sameeyo video editing wax kasta oo muuqaal sameyn ku saabsan inaad bartaan rabaa hadafkaagu waa sida muuqaal sameeyo inaad noqoto marka mar walba waxa muhiim ah waxa weeye inaad samayso hadaf cad inaad leedahay muhiim lambar 2 casharka ama koorsada aad baranayso u qaybi 10 u kala qaybi lama rabo wax ma hal maalin la tara wixii oo dhan ma hal mar ku wada baranaya koorsada ama waxa aad baranayso waxaad u samaysataa waxa la yiraahdo qaybi 10 u qaybi 10 u qaybi isku dayin wax badan inaad hal mar samayso u qaybi qaybo yar bointiga saddexaad waxa weeye samee jadwal samayso jadwal waa muhiim sababta hadda jadwal ku socon waxa la yiraahdaa ficil badan oo hal maalin aad sameystay waxa ka wanaagsan ficil aad ku soo celiso maalin kasta halka ficil aad maalin kasta ku soo celiso wuxuu ka wanaagsan yahay hal maalin oo dhiigaagu kacsan yahay oo shaqo badan aad qabato lama rabo tusaale hal saac maalintii waxaan rabaa inaad xirfad aad barto maalintii 24 saacadood kaliya hal saac kaliya inaad xirfadda waqti siiyaan rabaa halka saac focus ka saar inta kala danahaaga qabso ama 30 daqiiqo ugu yaraan 30 daqiiqo qorshaysatay inta 30 daqiiqo iyo hal saac baa ugu wanaagsan wax ka yar waxa lagu baran karo wax ka badan inaad ku daasho ayaa dhici karta marka hal saac ugu badnaan ugu yaraan 30 daqiiqo koorsada maalin bageli bar 30 daqiiqo markaad maalin walba geliso hadaad bil wado natiijo fiican baad arkaysaa laakiin 30 daqiiqo maxaa la raadee 30 daqiiqo aad niyada furayso adoo niyadaadu furan tahay sababta waqtiga loo yareeyo waxa weeye waa inaad waxaan adoo xiisaynaya inaad gashaa laga raba laakiin dad tiraad maanta wax badan ma baranaya waa isku diyaarinaysaa xiisiga meesha ka lumaya wax bointiga afraad waxa weeye isticmaal ila kala duwan ha isku hadlayn koorsada kaliya waxa aad baranaysa kaliya focuska ha saareen ila kala duwan wax ka raadi wax laga yaabo waxaan hadda saar waxaan doonayaa online business aan barto Soomaa online business maxaa kamid ah online business waa badan yahay waxa noqon kara wax weeye suuqyada dibadda waa weyn si looga soo adeegtaan baran kara dropshipping kan baran kara waxa baran kara waxa weeye affiliate marketing kan baran kara intaasoo qaybood buu leeyahay marka had iyo goor waxa aad baranayso isticmaal ila kala duwan si aad aqoontaada u siyaadiso sida YouTube Google ka buugaag akhriso
koorsooyin kale online hadaad xirfadaad kusii darsan karto kusii darso marka waxaa lagaa rabaa inta yar aad baranayso qof waa arkaysa arday jaamacad buu dhiganayaa buug yar 40 page loo koobiyay 40 page buu rabaa inuu cilmi u noqdo 40 page cilmi ma noqdo marka waxa laga yaabaa koorsada ah inaad ka heli karto kumanaan kun oo muuqaal oo YouTube oo 10 oo taxanayaal oo la duubo cilmiga wax badan ku korinaya marka hadiyo goor ila kala duwan isticmaal si aqoontaadu ay u korodho qodobka waxa weeye muhiimkiisa waxa kamid ah qor note waa maxay pointiye ka samayso waxaan ha iska daawan ha iska dhageysan kaliya haddaad daawato dhageysato wax macna ma samaynayso waxa laga doonayaa wixii note samay qoraal ku samee pointiyada saad xasuusto qor waxa la yiraahdo qofka waxa uu qoro waa wuxuu xasuusto marka qorid samee qofka arkaysa course uu iibsanaya waxba ma qoro no details saar waxaan casharka muuqaalka macalinku wuxuu kaga hadlay uu sheegay waxa lagu baranayaa pointiga ku celi marka pointiga qoro hadhow su'aal haday kugu timaado pointiga ku jirto waa garanaysaa marka macalinku pointiyada markuu ka hadlay bay su'aashaada ku jirtaa hadaa la iska daawato ka war hadhow waxa oranaysaa waxa maxay ahayd tan maxay ahayd waa kan waxa arkaysaa arday badan oo online ku wareersan sababo waxa weeye cidda online koorsada ka iibisay inaysan jawaab ka helin cilad kale waxa weeye ardaygu wuxuu doonayaa qofkii uu koorsada ka iibsaday inuu kuleetiga haysto rabaa kuleetiga inuu haysto casharkii wax ku jira su'aal weydiinaya wuxuu ku leeyahay waa kan su'aasha ka jawaab hadii uu macalinku waxay uga daahana wuxuu leeyahay tuugo marka waa aqle wax kasta oo macalinku dhigay casharkaas meeshaas ku ururiyay adigu meesha daawo wixii ka maqan su'aasha waa weydiisan kartaa iyaga laftigooda ku jawaabaan waa tahay adiguna inaad waxa weeye wixii aad barato oo de YouTube ka gasho Google ka gasho adigu serious laga rabaa oo wax raadiso hadda tara qofkan kuleetiga haysanaya de horumar gaari maysid qodobka waxa laga rabaa baraatiis samee ku celceli su'aalaha xalliso adigu samee exercise adigu isweydii ku celceli waxaad ka jawaabi karto isku day haday tahay koorso practical la sameeyo computerkaaga dul tag practicalki samee ku celceli wixii keenaysa in waxa macna yeeshaan qodobka pointiga toddobaad waxa weeye oo pointiyada soo hoosgalaya waxa weeye istijaabi self test samee naftaada tijaabi imtixaan iska qaad ma barata wixii imtixaan iska qaad tusaale waxaan bartay koorso sida website loo sameeyo halka iska dhig wax walba waxa la material halka iska dhig website-ka zero ka soo bilow adigu marka halka istaag zero waxa tira waxaan rabaa inaan sameeyo website e-commerce aan rabaa inaan sameeyo from zero dhamaad adigu samee marka bari kama ku shaqeysan kartaa marka sababta ah oo baahan laakiin dad casharka daawato barba wax eegto macnaheedu waxa weeye waxaagu kuma dhicin weey haddaad heli karto qodobka pointiga sideeda waxa weeye bar qof kale haddaad heli karto inaad wixii barto ama aad ku shaqeyso oo xirfadda ah tusaale waxa bartay website sida loo sameeyo qof dadkan u baahan in website loo sameeyo lacagta awoodin qof wax tirada haya website baan ku sameeynaya adigu domainkii hostika iibsa kaliya oo ma $40 jooga ana aqoonta ayaan kaga faa'iideynaya adigu maxay tahay ujeedada waxa laga inaad koob shaah ka helin laakiin waa ku practice gareys bir lacag bay ku keenaysaa marka practice-ku waa muhiim oo meelaha Soomaalidu ay safahansaneen waxa la yiraahdo qofku wuxuu dhigo wax xasuustaa taa maskaxda ku hay marka qodobka afraad waxaan arki doonaa afarta qodob uu ka kooban yahay saddex qodob baan ka soo hadalnay oo self learning muxuu yahay muhiimadiisu maxay tahay sidee wax isku bari kartaa qodobkan waxaan arki doonaa talooyin aan muhiim ay tahay inaad samayso mar walba niyada ku hayso talooyinku waxa koow ka ah ka fogow mashquulka mobilka iska yar inta wax baranaysa mobil meel iskaga rabaale mobilka meel iska dhig inta wax baranayso ka fogow mashquulka qodobka waxa ku xigay samee meel wax barasho oo degan meel aad wax ku barato oo degan oo bilaa janqara samee qofku wuxuu rabaa meel buuq ah gabadhii oo kala xirta jikadii wax ku akhriso ma adeer ma soconaysa jikadii wax ku akhrisade sax rooraya ma dibad rooraysa waad ku wareeraysa wiilkii oo kale wuxuu rabaa qolkii uu wiilasha kubadda wada ciyaar ugu iimayeen wax ku akhriyo markaas uu hebel ballaminayo meesha halkaas wixii uu baranayay meesha ka baxaya meel degan hadaad guriga meel degan heli kartaan ku samayso hadii kale meelaha library-ga ah ee aan buuqa lahayn tag oo wax ku baro ha ka baqin qalad inaad qalad samayso ha ka baqin sababtoo ah qaladku waa qayb ka mid ah barashada markastoo wax qalado waa markastoo aad guul ka gaarto waxa kale oo muhiim ah iyada waxa weeye ku celceli marar badan waxa aad baranaysa marar badan ku celceli adeero ku celceli si aad wixii wax xasuusnaato ku celceli waxa kale oo muhiim waxa weeye joogtay adeero consistency la isku dhaafay inaad waxaan joogtayso guushu waxay ku xiran tahay sidaad waxa u joogtayso haba yaraadaan ilaahu rabbiyo ma 5 daqiiqo ku bixis maantii video 2 saac koorsada ka soo qaad waa 2 saac YouTube ka daawanaysa waa 2 saac عاجسلو واتاي سوما sababta inaga waxa ina dilay TikTok bayna dishay TikTok 2 daqiiqo ah hal second abayna dishay TikTok qofku wixii kala dirtaa maskaxda kala dirtaa
maskaxdaada saameynaysa dulqaad uma yeelin kartid muuqaal 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo inaad daawato muuqaal uma yeelin kartid waa dhib bay kugu noqonaysaa marka maxaa samaynaysaa yarayso muuqaalka 2 saac maalinba 5 daqiiqo ka daawo 5 daqiiqo maalin la waxay dhaantaa inaad intaan maalin olodho intaad tiraahdo 4 daqiiqo intaad barato inaad 2 bilood kadib kusoo laabato joogtaynta muhiim ah waxaan malinayaa afartaa qalad inaad ka fogaato waa isla fahanay ka fogo mashquul wixii ku mashquulinay sida mobile telephone message soo dhacaya waxaan oo dhan banaanka isaga tuur ha ka baqin qalad inaad samayso qaladku waa guul qaldan ku celceli marar badan waxa samaynaysaa ku celceli samee waxaan mar baan bartay hadda Soomaali waxaan oranaa wuxuu ku leeyahay wax baan bartay tay waxa waan aqaanaa iyo waan bartay waa laba kala duwan waan aqaanaa macnaheedu waxa weeyaan waxaan waa samayn karaa waan bartay hadda samayn kara barashadeed maxay taraysaa waxba taramayso marka haddii aad rabto inaad guul gaarto ha sugin macallin mar walba ha oran macallin baan sugaya macallin naftaada wax isbar adoo ganacsigaaga jooga adoo gurigaaga jooga adoo jaamacadaada jooga adoo iskuulkaaga jooga adoo isku day wax barato cilmigaaga kordhiso ninna ha isku xirin ninna ha sugin cilmiga maanta banaanku yaala free buu ku yaala wax kasta aad ku helaysaa free marka kulay waxa weeye koorsooyin wax la helaysaa qiimahoodu aad u yahay noloshaada wax ka bedelaya qofkan koorsadan diyaariyay koorsada yar aad lacag yar ka bixisay waxa laga yaabaa adigu marka hal abuurkaaga ku kordhiso inaad noloshaada wax badan ka bedesho marka had iyo goor waxa weeye naftaada horumari xasuusnow qof kasta oo guuleysta wuxuu leeyahay hal sir oo ah isbarid joogta mar kasta qof xisbara weeye haddii aad muuqaalka ka heshay walaal like noo saar sidoo kale akademiyada waxaan bixinaa koorsooyin kala duwan 4 koorsaan bixinaa koorsada koowaad waxa weeye cryptocurrency sida lacagaha cryptoda looga shaqeysto oo cryptocurrency loo maalgashado looga trade gareeyo koorsada labaad aan bixinaa waxa weeye sida ganacsi online loo bilaabo koorsada saddexaad suuqgeynta baraha bulshada ayaan bixinaa koorsada afraadna waxaan bixinaa fagaara ka hadalka sida uu noqon lahayd qof codkar ah afartaa koorsaan bixinaa oo qiimahoodu aad u jaban yahay runtii 100% discount aan ku sameynay marka website-ka booqo iyagana xulo runtii wax badan bay noloshaada ka bedeli doonaan adeero marka haysi dhiibin like saar video-ga haddaad sii share gareyn karto subscribe-na waa muhiim si aad casharo kale u hesho aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu